السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجنا الكين مام شرف وإذله سودواد ولا ليه قالجة ملك صوت دنود دافع ذيك جوكتين وإذ السلامي أصحابتي ذا قالجة هذه ما إذا جعلها ولا ليه قالجة أجري حسن هذا الله إذا سيو دم بيجين الدم بوالدكين الله دافع ولا ليه قالجة ملك صوت جوكتين ما أنت برنامج كان إذا هاي وحواي إن يعني هدي قبدي أو جوركي أو هذا أي جورستو إرتني جورستو جورتون تاي أي كفر ستو جور كده markay ka fiirsato wiilkii ay isguursadeen markoo isfahmaan ee labadooda isguursadaan markaasi wax dhibaato ma dhaceyso gabadhii waxa waaye ayada waxay ku soo kortay dhaqan kaleeto reerkooda wiilkuna wuxuu ku soo koray dhaqan kale oo reerkiisa ah marka laakiin haddii juhdi badan ay siiyaan ay muddo badan isla socdaan isfahmaan wada sheekaystaan si fiican isku dhexgalaan way isfahmayaan dabeecadeeda gabadha wuu arkaya wiilka dabeecadiisa wuu arkaya markaas ayagoo raali ah oo isfahmeen bay isguursanayaan hadduu ilaahay oolaad kala siiyo ee oolaad ilaahay kala helaan markaas gabadhii waxaa loo baahan yahay inay u dhabar adeegto ilaan oolaada meesha imaaday guurka ma ahan wax fudud ma ahan in guurka la fududeysto ma aha walaalahayga qaaliga ah in furiinka la fududeystana ma ahan furiinka wax la fududeysto ma aha asagane guurkana wax la fududeysto ma ahan guurku waa wax culus waa wax fiican ilaahay raali ka yahay marka walaalahayga qaaliga ah haddii aad maanta guursatid waxaan kaa baryayaa in aan gabadhii aad ku dhabar adeegtid oo aad sii deynin si oo u yaraado qoyska burburka iyo kala tagga sida oo u yaraado walaalahayga qaaliga ah haddii isfahano waxba nagama halaabayaan marka waxaa la rabaa gabadhii inay wiilkii fahanto ilmihii meeshaas oolaadii aysan dayacmin si ay oolaad fiican u helno oo odagii habartii maasha Allah haddii isku qanacsan yihiin ilmihii maasha Allah ilmo fiican oo wanaagsan meeshaas ka soo baxaayo seegaayo ka dambeysay odagaayo ka dambeysay loo baahan yahay wax alaala wuxuu ku dhaho ayeeshid maasha Allah aad noqotid marwo fiican asagana wuxuu ku noqonayaa si fiican haddaad wanaajisid odagaaga asna wuu ku wanaajinayaa marka walaalahayga qaaliga ah aan iswanaajino aan ilaalino guurkeena sharafta leh ilaahay raaliga ka yahay maasha Allah yaana lagu fududaanin in la kala tago kala tag wax fiican ma ahan waa fahanteen Soomaa sababtoo oolaada meesha imaaday ilmihi dayacmaayo cunugii waxaa dhacayso inuu odag markuu ka tago oo darbi jiif noqdo in waxaa dhacayso meelahaas oo koola dhuuq ku noqdo dugsiga oo diido hooyadii waxay raadinaysaa qotolyoonkoodii oo odagii habarta hadii kala tagaan markaas odagii waxaa laga yaabaa mid alla ka baqaayo ma ahan inta badan waxay sameeyaan in ay ku dayacaan ilmihii oo wax biila aysan ku siinin hooyadii aad bay hooyo ilaahay waxaan ka baryayaa hooyo meel walba joogto adduun iyo aakhiraba ilaahay in hooyo jannadii firdawsi aad ka waraabiyo hooyo waa wax fiican hooyo ilaahay ajar iyo xasanaad ha siiyo hooyo ninkii haysto wallaahi bilaahi adduunyo haystaa hooyo ilaahay dembigeeda ha dhooro hooyo lama heli karo waa shay qaali ah hooyo macaan marka waxaan iska codsanayaa ilmihiina marka hooyadii ku dayacanta oo ninka ku dayaco hooyadii badarkii raashinkii ay raadiso ma isku keenayso inay ilmihii yani hayso ama raashinkii ay doonto ma isku keenayso walaalkayga qaaliga aho marka cunugii waxaa laga yaabaa inuu dad ay yani u sheekeeyaan waxaa laga yaabaa tahriibka inuu u fududaado oo cunugii tahriibo hooyadii iyadoo bariiskiisii la daala dhaceyso raadinayso waxyaalaha dhibaatada noo horseedaya waxay tahay burburka qoyska ku imaanayo hooyadii aabiyo kala tagayaan kabacdi ilmihii meeshaas dayacad weyn ayaa ka imaanayo saasay ilmihii u dayacmayaan meeqaar koola dhuuqayso dariiqyada jiifto meeqaa joogto waa wax burbur ku yimid hooyadii aabihii ay kala tageen marka walaalahayga qaaliga aho waa inaan yareynaa burburka qoyska oo awlaada xaggooda aan fiirino si awlaadeeni ay u noqdaan awlaad fiican ilmo fiican mustaqbalkoodii ayahooda loo habeeyo waxbarashadooda diinta lagu abaabiyo maasha Allah tabaaraka Allah walaalahayga qaaliga saasaan jecelnahay inaan noqono ilmo fiican aan noo soo baxaan awlaad fiican anaga dhan aan wada noqono yani waa kaasa walaalahayga qaaliga barnaamijka daawashada ay daawateen waa ku mahadsantihiin subscribe iyo saar iyo share garay like-na saar comment-na ka bixi barnaamijka walaalahayga qaaliga filmaan badan oo idi xiiso geliyeen waa idin soo wadaa insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.